sideed ugu jari kartaa calooshaada muddo toddobaad gudihiisa ah adigoo gurigaaga jooga. أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقا. السلام عليكم waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan ku soo dhawow fikrad magacayga weybiisu sakeen marka ay noqoto mowduuca ku saabsan iscaataynta. run ahaantii waxaan ku leeyahay Soomaalideena dhexdeena sumcad aad u wanaagsan. ma jirto inaan la kulmo saddex qof oo Soomaali ah ilaa haddii aan la kulmo laba ayaga ka mid ah waxay iga sheekaynayaan sida ay ugu guuleysteen natiijada aan caadiga ahayn ay ka gaareen kadib markii ay daawadeen muuqaalkeena ku saabsanaa iscaataynta. aad ay u fara badan yihiin fariimaha ay soo gaara dad iga sheekaynaya sida ay miisaankooda u dhimeen sida ay ugu guuleysteen kadib markii ay nidaamkaasi raaceen. reer Soomaali ayagana warkoodaba iska daa waxay ii bixiyeen macallinkii iscaataynta. run ahaantii anigu ma ihin macallin iscaateyn, waxaan ahay oo keliya qof wixii uu barta marka hore nafsadiisa ku dabaqa kadib markaan ku guuleysto ayaan idin soo gudbiyaa, ayaan idin la wadaagaa. waana midaas sababta ka dhigta wax walba oo idin sheego inaad ku guuleysatiin. maadaama aniga aan ku guuleystay dad kalena ay ku guuleysteen oo ay sameeyeen waa hubaal adigana waad ku guuleysanaysaa. haddaba maanta ayuu ogolow inaan kula wadaago nidaam ama sir cajiib ah. sirtaas oo sabab u ah run ahaantii aniga inaan miisaankayga xakameeyo, inaan kontaroolo. adiga waad og tahay kadib markii aan sameeyey nidaamkii iscaataynta ee aan ku sharaxnay muuqaalkeenii hore miisaankaygii wuxuu noqday mid si aada hoos ugu dhaca. run ahaantii hadda markaan haddii ugu laabto aan fiiriyo muuqaaladii aan waagaasi duway waan la yaabaa sida xaaladeedu ay noqotay. waxaan gaaray heer markaan waddada socdo aan la kulmo saaxiibadeeda ay igu yidhahdaan ayuu maxaa kugu dhacay, ma xanuunsatay, si ay wax kaa yihiin. waagaasi ma dareemaynin, balse hadda markaan arko anigaaba hadda isla yaababa. run ahaantii xaaladeedu waxay gaartay meel khatar ah. haddaba waxaan u baahday inaan miisaankaygii soo ceshto soo maa si aan u noqdo qof dhexdhexaad ah, qof dadka ku dhex jiri kara. haddaba waxaan u laabtay waxyaabihii aan markii hore nafsadeyda ka mamnuucay. waxaan u laabtay bariiskii, baastadii, caanihii. waxaan u laabtay waxyaabo nafaqo igu soo celinaya. haddaba haddii aan waxyaabahan sii wado oo nafaqada badan miisaankayga haddana wuxuu noqonayaa meeshii aan markii horeba aan ka soo cararay soomaa, meeshii markii horeba igu dhalisay inaan nidaamkaasi raaco. haddaba maxaan sameeyaa? se miisaankayga uga dhigi karaa mid aan kontaroolo, mid balance aan ku sameeyo. waxaan ku awooday sirta aan maanta kula wadaagi doono. shaygan aan maanta kuu sheegi doono wuxuu kuu suurtagelinayaa, wuxuu awood kuu siinayaa inaad miisaankaaga xakamaysid, in miisaankaaga uusan ka badbadanin sidoo kale hoos u dhicin, inaad ahaatid qof dhexdhexaada. soo midaas ma doonaysid? haddii aad ku dhiban tahay caloosha ama guud ahaan miisaankaaga oo dhan, fikraddan aad ayaad ugu baahan tahay. haddii miisaankaaga uu yahay dhexdhexaad balse aadan doonayn inuu ka sii bato, aad ayaad ugu baahan tahay fikraddan. haddaba dhinac walba, xaalad walba oo tahay waad u baahan tahay, waayo sirtan waxaad ku awoodaysaa inaad noloshaadoo dhan ku xakamaysid. haddaba inta aan kuu sheegin sirtan waxaa lagama maarmaan inaan kuu sheego arrimo loo baahan yahay. arrimahan haddii aad doonaysid inaad natiijo fiican ka keentid shaygan aad samayn doontid oo aan kula wadaagi doono, waxaad u baahan tahay inaad arrimahan samaysid. waxaan u qaybay arrimahan laba qaybood. waxyaabo ay tahay inaad ka istaagtid inta aad ku guda jirto toddobaadkan, muddada toddobaadka aad doonayso calooshaada inaad ku ridid oo aad ku jartid. waa inaad ka fogaatid waxyaabo aan kuu sheegi doono. sidoo kale waxyaabo ay tahay inaad la samaysid inta adiga aad toddobaadkan ku guda jirtid. haddaba waxyaabo ay tahay inaad ka fogaatid waxaa ka mid ah liiskan. kow, sokorta, wax walba oo macmacaan ah. muddadan toddobaadka ah ee aad ku socotid arrintan aan kula wadaagi doono wax yar kadib, waa inaad ka fogaataa wax walba oo sokor ah. sokor oo dhan waa inaad ka fogaataa. wax walba oo macmacaana waa inaad ka fogaataa. xalwada, wax walba oo la mid ah, wax walba oo macmacaan laga sameeyo, buskudka, waxyaabahaas oo dhan waa inaad ka fogaataa. labo, bariis, wax walba oo bura waa inaad ka fogaataa. bariiska iyo baastada iyo canjeerada waxaas oo dhan waa inaad ka fogaataa. sidoo kale waa inaad ka fogaataa caanaha faadka leh
wax walba oo faad ka samaysan waa inaad ka fogaataa. saliidda waa inaad ka fogaataa. subaga waa inaad ka fogaataa. caanaha faad kale sidoo kale oo dufunta le waa inaad ka fogaataa. waxyaabahaas oo dhan waa inaad ka fogaataa. hadda waan ku maqlayaa waxaad leedahay waayahay maxaan cunaa wixii oo dhan waa iga celisay maxaan cunaa. waxaa jira waxyaabo badan oo aad cuni kartid. waxaan kuu sheegaa waxa aad u yar Soomaali bariis iyo baasto iyo sokor iyo caanaha oo dufanta leh bas intaas un baan kuu sheegay inaad ka istaagtid. laakiin waxyaabahan kula wadaagi doono oo kuu banaan inaad cuntid way ka badan yihiin intaan oo dhan. waxaad cuni kartaa bariiska biyaha lagu kariyey ee aan saliid iyo wax lagu darin suugo iyo lagu samaynin. waxaad cuni kartaa wax walba oo qamadi ka samaysan. canjeerada haddii ay qamadi oo keliya ka samaysan tahay waad cuni kartaa wax dhibo ma keenayso. qamadida nafteeda ayaad cuni kartaa haddii aad doonaysid. misagada ayaad cuni kartaa. soorta ayaad cuni kartaa. waxyaabahaas oo dhan way ku banaan yihiin. digirta ayaad cuni kartaa. ukunta ayaad cuni kartaa. waxaas oo dhan ayaa kuu banaan inaad cuntid. qudaarta noocyadeeda oo dhan ayaad cuni kartaa. soo ma jeedid. haddaba muddadan toddobaadka ah ee aad ku socotid nidaamkan waxaa laazim ah inaad ka istaagtid waxyaabahaasi oona samaysid waxyaabahan. hadda su-aal ayaad weydiinaysaa waxaad leedahay waaya ayuub ma isiin kartaa jadwal aan ku soconayo. haa bishaarayso waxaan ku siin doonaa jadwal aad ku socon doontid. jadwal maalintii oo dhan ah aad samayn doontid. marka hore inta aanan kuu sheegin jadwalka aad ku socon doontid ee maalinlaha ah waxaad i weydiinaysaa oo ad leedahay muxuu yahay shaygan. muxuu yahay waxaan samaynayo. muxuu yahay shaygan aad ku awoodi kartid inaad miisaankaaga oo dhan aad ku xakamaysid. muxuu yahay shaygan aan ku awoodi karo inaad calooshayda ku ridaso ma ahan. haddaba shaygan ma ahan wax kale. shaygan waa labada liin iyo sanjabiil. liin iyo sanjabiil waa labadan oo keliya. sirtu waa labadan haddii aad samaysid oo aad u samaysid sida aan kugu sheegi doono aan kugu sharxi doono waxaan ku damaana qaadayaa inaad natiijo aad u wanaagsan ka gaari doontid. waa la tijaabiyey waana lagu guulaystay. nafsadeyda iyo dad kale ayaa tijaabiyey oona ku guulaysteen. waa labadan. sirtu waa labadan waa sanjabiishan iyo liintaan. hadda waxaan kuu sheegayaa sidii aad u samayn lahayd. sida loo sameeyo aad ayay u fududahay. waxaad u baahan tahay oo keliya biyo iyo labadan iyo biyo ayaad u baahan tahay. wax kaloo dheeri aad u baahan tahay ma jiraan. sanjabiisha laakiin waa inay midaan ahaataa midda qoyan ma ahan midda budada ah. may midda bowdharka lama rabo. midaan ayaa loo baahan yahay. midaan qoyan ayaa loo baahan yahay iyo liin. haddaba se u samaynaysaa waxaa u samaynaysaa waxaad soo qaadanaysaa 3 xabo oo liima dhanaana. kadib waxaad soo qaadanaysaa sanjabiilka jab ayaa soo qaadanaysaa oo hadda intaan way weyn tahay laakiin in meeshaan la eg in intaan oo kale la eg ayaa soo qaadanaysaa. waad jarjaraysaa birta ayaa ku xoqaysaa. kadib budadii wixii aad xoqday iyo liintii aad jarjartay ee liima dhanaanta ahayd 3 xaba ah ayaa soo qaadaysaa. waxaad ku ridaysaa biyihii. biyaha waxaad ka dhiganaysaa 3 koob ama 4 koob ayaad ka dhigaysaa. kadib waad ku dhex ridaysaa. kadib waad daboolaysaa. waxaad sugaysaa ilaa ay ka wadiintiyaan biyaha oo ay aada uga kulaadaan. kadib marka ay kulaadaan waad ka daminaysaa dabka waa u daynaysaa. waxaad sugaysaa ilaa ay xoogaa ka qaboobaan qandac ilaa ay ka noqdaan hadda waxaad weydiinaysaa waa haysaan u cabayaa. markaad saa u samaysid waxaad u cabaysaa 3 jeer. waxaad cabaysaa kow markaad soo kacdid calooshaada oo banaan oon waxba ku jirin. markaad saa usoo kacdidba ku bilow ayada ku bilow. sidoo kale intaadan seexanin ka hor waa inaad ka dhigtaa waxa ugu dambeeya aad cabtid waa inaad ka dhigtaa liinta iyo sanjabiilka. sidoo kale mar walba wax cuntid waxaad cabaysaa koob liinta iyo sanjabiilka ah. sidaan kuwa aniga sidaas ayaan sameeyaa. markaan wax cunaba iyada ayaan cabaa. shaah oo kale ayaan ka dhigtay. jadwalkaagi hadda ayaan bilaabanaa waayo hadda wixii waa samaysay sidii loo sameynayo waan kuu sheegay. hadda waxaan kuu sheegayaa marka jadwalkii maalinlaha ah aad ku socon lahayd. subaxii baa soo kacday calooshaada oo banaan adigoon wax kala cunin. biyihii aad samaysatay ayaa soo qaadanaysaa. liintii 3 xabo liinta ah aad jarjartay qaabkii hadda u samaysay iyo sanjabiishii
koob ayaad ku shubanaysaa waad cabaysaa. haddaba waxa ugu horeeya aad ku bilowdid waa cabitaankaas. cabitaankan ayaad ku bilaabaysaa calooshaada oo faadi ah oo wax kale adoon cunin. biyaha ayaad ku bilaabaysaa. kadib markaad cabtid waxaad sii sugaysaa 15 daqiiqo ayaad sugaysaa ama 10 daqiiqo. kadib waxaad samaysanaysaa 2 xabo ukun ah ayaad samaysanaysaa. waxaad kaloo samaysan kartaa qajaar khudaar ayaad cunaysaa. kadib haddii aad samaysatay canjeero qamadi ku samaysan waad cuni kartaa, wax dhiba ma lahan. ama rooti kale oo ka samaysan qamadi waad la cuni kartaa. quraacdaadii waa intaas. biyahaas aad ku bilaabaysid, ukuntaas biyaha lagu kariyey biyo ayaad ku karinaysaa, ma ahan saliid inaad ku karisid. qajaarka iyo haddaad samaysatay canjeero qamadi ka samaysan ama roodhi qamadi ka samaysan, intaas ayaad ku quraacanaysaa. hawshaa iska aadaysaa. qadada ayaa la gaaray. qadada marka la gaaray waxaad ku qadaynaysaa bariis biyo cad lagu kariyey, wax kalooad ku daraysid ma lahan. milix haddaad u baahatid, cusbo wax yariis ayaad ku daraysaa, laakiin cusbada iska ilaali. waa cusbada waxay keentaa burnaanta ayay keentaa, cayilaada ayay keentaa. haddaba cusbada intii aad ka fogaan kartid ka fogo, laakiin wax yar haddaa u isticmaashid dhib ma lahan. biyo oo keliya ayaad ku karinaysaa bariiska. waxaad la cunaysaa markaasi bariiskaasi ilaa uu qallalan yahay Soomaal. waxaad u baahan tahay waxaad ku cuntid. waxaad cuni kartaa digaag, waxaad cuni kartaa kalluun, intaasoo dhan ayaad ku cuni kartaa oo kuu banaa. soo ma jeedid? run ahaantii marka aad fiirisid waxyaabaha kuu banaa inaad cuntid ayaa ka badan waxyaabaha lagaa reebay. waxa lagaa reebay wax aad u yar, balse waxaa ka badan waxyaabaha haysatid Soomaal. haddaba waxay dhihin gaajo ayaan u dhimanaya, ma jiro qof gaajo u dhimanaya. waxaan o dhan ayaa kuu banaan inaad cuntid. hadda waad qadaysay bariiskii caddaa, khudaar iyo kalluun ama digaag biyo lagu kariyey, ma ahan midda la shiilay, biyaha lagu kariyey ayaad ku qadaysay. waad dherigtay hadda. kadibna waxaa la gaaray cashadii Soomaal. cashada ma aha inaad wax badan cuntid, waa inaad yaraysaa. waxyaaba khafiif waa inaad cuntaa. haddii aad ka dhigan kartid khudaar oo keliya way wanaagsan tahay, iyo yogurt zabaadi inaad ka dhigatid way fiican tahay. yogarka aan lahayn faatka skiimka ah inaad ayada isticmaashid, iyo khudaar waxyaaba aan bur ku jirin oo khafiifa inaad ku cashaysid ayaa wanaagsan. hadda markaa cashaysay kadib waad sii joogaysaa. mar walbana cashadaadu waa inay ahaataa ka hor 4 saacadood ma 3 saacadood intaadan seexanin. iska ilaali inaad seexatid adigoo markaas wax cunay, calooshaada markaas buuxda. may mar walba waa inay u dhaxaysaa hurdadaada iyo cashadaada 4 saacadood ugu yaraan, ama 2 saacadood 3 saacadood. hadda waa cashaysay, khudaartii ayaad cuntay ama yogarkii ayaad cuntay intaadan seexanin ka hor. hadda diyaar ayaad tahay, waxaad diyaar u tahay inaad seexatid Soomaal. intaadan seexanin ka hor maxaad samaynaysaa? waa sida aad leedahay. hadda waxaad soo qaadanaysaa biyihii aad samaysatay ee aad ka samaysay sinjibiisha iyo liima dhanaanta soo maaha. kadib biyahaas ayaad cabaysaa. waxaad ka dhigaysaa waxa ugu dambeeya aad cabtid intaadan seexanin ayaad cabaysaa. markaad cabtid hal koob ayaad cabaysaa. markaad cabtid wax yar ayaad joogaysaa. kadib waa seexanaysaa. sidaas ayaad ku seexanaysaa. haddana sidii ayaad kusoo bilaabaysaa maalinta ku xigta. 7 maalin ayaad u baahan tahay oo keliya inaad sidaan ku socotid. haddii aad jadwalkan ku socotid 7 maalin igu soo laabo oona ii ducee, waayo waxaad gaari doontaa natiijada aad weligaagaba ku riyoon jirtay. haddaba sidaan waxaad ku haysataa wax walbo aad u baahnayd si aad miisaankaaga u yaraysid, si aad calooshaada u jartid. adiga keliya waxaa lagaa rabaa inaad tallaabooyinkaad aad baratay nafsadaada ku dabaqdid oona ugu socotid sida aan kugu sheegay. warqad ku qoro, dembiga ku dhajiso, talaajada dusheeda ku dhajiso, meel mar walba maalin walba aad ka arkaysid ood kala socon kartid si aad maalin walba ugu socotid. kadibna marka aad ku guulaysatid, waan hubaa inaad ku guulaysan doontid, igu soo laabo. hadda waxaa laga yaabaa qaarkiina inaad su-aaloon isweydiinaysiin. su-aalahaasi waxaa ka mid ah, gabar ayaa hadda waxay dhihi kartaa aniga ayuu waxaan qabaa xasaasiyad, waxaan ka qabaa xabadka, gastric ayaan qabaa, saa darteeda sanjabiisha iyo liinta way dhibaysaa, way gubaysaa, maxaan sameeyaa? fiiri, wax ku dhibaya weligaaga ha samayn. wax haddii aragtid inaad dhib ku qabtid ha samayn, ka fogow. sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad la tashatid dhakhtar
dhakhtar u tag oo weydii waxaad ku tiraahdaa dhibaatadaas ayaan qabaa xasaasiyad ayaan xabadka ka qabaa ma isticmaali karaa sanjabiil haddaba wax ku dhibaya ha samaynin ka fogow haddii baa dhib ku qabtid ha samaynin sidoo kale gabar ayaa ay weydiin karta waxayna ay leedahay ur ayaan leeyahay ma isticmaali karaa nidaamkan may ha isticmaali haddii aad ur leedahay sidoo kale haddii aad ilmo naas nuujinaysid ha isticmaalin barnaamijkan idinkuma talagelin idinka hadhow marka ilmaha naaska ka go-o waa soo laaban kartaa laakiin adigoo uur leh adiga oo ilmo naas nuujinaya ha isticmaalin haddii aad ka heshay videogan ku kaabo like la wadaag walaalaha kale oo u baahan inay ka faa'iidaystaan muuqaalkan oo kale sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay ku kabo channelkeena subscribe hadduu alla weyne ogolaado waxaan ku arki doonaa muuqaalka soo socda tan iyo intaas waxaan ku leeyahay mar walba mahadsanid كن ثابتا كن راسخا مثل الجبال